kaystayo lagu wadaagye ubixi dalkow ubadkii dadkow indhidantow maabal gudnaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع الحيصلة إيا كلانتها بون صاحب بيالي كسو دوادا وربحين كسابسان قيمها أقونتا أخيارتانو تشعر لها يومين وربحين تينين كو قدا تشرنو وحين كو اوغان دونا قيمها يقونتو الله دهي يقف كنولي بلا آدم كابوزيشن كاي كتاغان تهي أقونتو يسدا إلا مقامر مارمان كوغوتاهي ينو قف نولو بلا آدم با علمي يا أقون يشو وصاحب بيال وربحين تاني واحد اللي سعودسين دونا هدي الله وين أود ليدمو أنا ويحيى موسى إبراهيم نيروبي. أقوى هب أمن نظام وحبر شو قف ما حيوان لقو بريا إسلام مركزين لقو فهمستين يوحانو أقونو لهين مركاينو تحرعنو كلمة أقون أفصومانيغا صحدا إريغا أقون يا كلمة وقوها بون استعمالك هل كإريغا علمنا يتهي مدف عربية إنت بدن الله استعمالا مقع قفاد أقونتو وفرها نلاشا وقفك ما حيوانك أقون تلهي آذا يوغا مسكحي فهم يكرتي بدن يا ميد كان وحبا أقون إريغا جهلي أيا إنت بدن أقون تكسور جيدا إسلام مركزين اللي تكوا الدنيا تعليني علم لغوتنا كوا سمد تغي واقون waxay ku tooqaan tartanbay ku gaareen halka kuna tisqaadeen tubta noloshu way durugsantay waana tahandheer turiya gaari maysiya dhawaaq la isla tooxay halkay taala wabiya la walaga talaabay marna waacirka tiigsayo 10 kun oo baac marna tulud liqba kaga fudud qabaday taay تجوجها نكى لبتة تحرك وديدي الساقي inuu tugsada waatullahu baaye halkay maanta gaaladu tagta tacajabaysaan tamashlay ku marayan dayaxatahana dhaafeen taladahana qaar badagootu iyo yawrtee sahankoodu wuxuu tagayay tan iyo nibtoone dhultiga labay reer fureen oo tuski helay markuu taran dacaanada ma ruuxu tagay hadduu kibir la wada ticaya galka aqoon waxay leedahay qaybo kala duwan marka laga eego dhinacyo kala duwan haddii aynu ka istaagno dhinaca aqoonta inta badan u naqaano taasaaska iyo asaaska nolosha ee marka uu ilmaha uu yar yahay u bilaabanta ayaa waxay soo martaa heerar kala duwan oo isdaba taxan kuwaasi oo kala aqoonta lagu barta dugsiga quraanka dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare iyo waliba heerarka jaamacadda ee kala dambeeya aqoontu waa mid muhiim u ah ummadda adduunka waana ukunta ummadi ka horumarto ama kadib dhacdo aqoon haddii si kale loo qeexo waxay noqonaysaa inuu qofku barto waxa uusan aqoon buuxda u lahayn marka hore waxbarashadu waa furaha nolosha aqoon haddii aad maqasho waa habka aad ku kala galan karto waxa ku wanaagsan iyo waxa ku xunba aqoon haddii aysan jiri lahayn maanta adduunyada aad arkayso daaraha dhaadheer iyo gawaadhida kala socota diyaaradaha lama hindiseen haddii aysan aqooni jiri lahayn aqoon waa tii bulshada kala hagta aqoontu waa tii dad isku keenta aqoon waa tii lagu horumar gaadho aqoon waa tii diintayna fahamsiisay arday waxaanu nahay aqoontiyo cilmiga lagu abaabiyo asluubiya dulqaad eebasiyayo ummadoo dhami wasxan falo kuwaad kaystayo lagu wadaagye ubixi dalkow ubadkii dadkow indhidantow maabal gudnaa low bawrka hore inta uu socdo kan dabana ogye kuwii taalaya nimaya u aflaxay arankan kiciyo shiilka imanayaba ma tusna awood dhabo aayo wacan ubixi dalkow ubadkii dadkow indhidantow maabal gudnaa dhibtaada migan aafaysan iyo iimaan saddexan ee adduunka dhibay eelbaa ka daran haddaynaan ogaa
indhihii dantow ma abaalgudnaa. inkastoo inaan ka gayoonay qiimaha aqoontu ay leedahay islamarkaasina hal iyo laba warbixinood midkoodna kusoo koobi karin, haddana aqoon waa taay ku horumareen dalalka hodanka. aqoon waa marxalad qurxoon uu soo maro qof kastoo aqoon-yahani, islamarkaasina magac iyo maamuus ku dhexla bulshada. aqoontu waa kobciyaha garaadka qofka, waana dabargooyaha wax kastoo qofka u keenayo hoos u dhac shaqsi. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa geel laba jir soo wada mar, balse inaguna waxaanu leenahay aqoon-yahan arday soo wada mar. waxaynu ka wada dhareegsannahay aqoonta iyo qiimaheeda halka ay ka joogta shareecada islaamka, islamarkaasina qofka aqoon-yahankay waa kan bedela naftiisa iyo nafaha dadka kale, waana tusiyaha dariiq iftiimayo oo leh nolol xaraga iyo niico qabow. sidaas si ay tahayna waxa wax la barta ugu fiican diinteenna islaamka, qur-aanka iyo qowlka eebbe, islamarkaasina inooga digaya wax kastoo nafteenna halis gelinaya iyo ciqaab, islamarkaasina inagu toosinaya wax kastoo nafteenna u keenaya kasbashada raalli ahaanshaha ilaahay. arday waxaanu nahay aqoontiyo cilmiga lagu abaabiyo asluubiya dulqaad eebasiyayo ummadoo dhami wasxan falo ku adkaystayo lagu wada ogye ubixii dalkow ubadkii dadkow indhihii dantow ma abaalgudnaa. dhowbawrka hore inta uu socdo kan dabana ogye ku itaalaya. aqoon waa hubka ugu culus ee lagula dagaalami karo qabyaaladda iyo qarandumiska, waana wado quman oo lagu binayn karo dad hanan qaada iyo dal horumaray, xasilooni iyo ammaan buuxa, nolol ifafaala khayr wadata iyo muquurasho muwaadinnimo dhaba, wadan jacayl iyo isla jaanqaad jawaabaha jahliga. isku soo wada duuba aqoontu waa lagama maarmaan. muwaadin adiguna noqo qof ka shaqeeya horumarka dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa. waxaad aqoon iyo xeelad u leedahay hananqaadka dalkaaga ku darso.